هاي حبيبة حاج علي وهاي حبيبة أيا وحي شيغيسا إن ويلكيدا uu ku xiran yahay fish traffico maadaama wiilkeedu uu geystay shilkaasoo bajaaj wiilkeedan wuxuu ku geystay deegaanka ceelasha biyaha hooyo xabiibo xaaji cali ayaa shacabka Soomaaliyeed waxay ka codsanaysaa in ay wiilkeeda dib xuriyadiisa u helo waxaana ku xirantahay ay sheegaysaa ama dhibanaha shilka loo geystay oo ku sugan yahay mid kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo lagu dabiibayo hooyo xabiibo ay sheegayso in wax qarash aysan heenin waxay ka codsanaysaa shacabka Soomaaliyeed in ay ku soo tabarucaan wixii u awoodaan ay qarashkaasi ay wiilkeeda dib xuriyadiisa ugu hel lahaayeen wiilkaasi ayaa hadeertan ku xiran fish traffico muddo 36 cisho aad u dhibaataysan oo cunug shil iyo galmeesha ceelasha oo fish traffico iyaga xiran walaal bas waxa ka codsanaa in garab igu saamiirkaas isoo deeyaan oo artist oo u geystay ceelasha oo shil oo mooto amar ilaahay oo ku dhacday oo wiilkan iyaga xiran yahay oo ma 36 tahay oo qarash igu sii socdo aan dhiibi karin oo qof aad u tabaryara ahay marka wiilka ku xiran macnaha waa wiilkayga aan dhalay waa shil oo geystay oo mooto ceelasha bal qofka shilka loo geystay isbitaal oo ku jira marka fish traffico ku dhagan wiilka oo ku xiran yahay marka neeqa maalmood gamay 36 maantii 36 maalmood marka walaalaha ku daawanaan waxa ka codsan inay garab isiyaan qof aad u danyara ahay inay garab isiyaan ka codsan walaalaha muslimiinta lacagta laga reebay lacagta laga reebay $2 marka wiilka inta isbitaal ku sii jiro lacagtii qarashkii maalmood ku socotaa oo lacagtu waa igu socotaa inta isbitaal ku jira lacagta ay ku socotaa waa igu socotaa lacagta lambarka ay dadka ay kala soo xariiri karaan furaha ee warwa 74 67 oo xabiibo xaaji cali ayaa waxay sheegaysaa in wiilkeedu uu leeyahay reer maadaama wiilkaasi loo xiray shilkaasi uu geystay dartiisii ana tusoo biir naagtiisa adina maamadii tahay oo beelkii uu ku sii marka wax kale oo niig maya marka dadka marka uu codsanay dadka muslimin walaalintana garab siyaana uu codsanaya ayaa hooyo xabiibo waxay sheegaysaa in qarashkii la soo weydiyay oo wiilkeeda uu xiran yahay hadii qarashkaasi la helo ay sheegayso in wiilkeeda xuriyadiisa ay dib u heli doono tani waa Saudi Usman Awees ahna marwada u dhaxda Mustaf Maxamed Maxamuud ahna dhibanaha geystay shilka kuna xiran fish traffico ayaa waxay sheegaysaa in saygeeda uu ahaa darawalka xaya bajaajka ay sheegaysaa in hadeertan aysan haysan wax ay quutaan ama ay cunaan ay ka helaan mararka qaarkood dariska ku noolnahay bariga ilaahay ka soo qaadaa cunna bariga ilaahayna soo qaadanna waa iska qadnaa marka qofka kaliya wiil Mustaf Maxamed laamigaas oo noo saarnaay maanta soo helwoon siihay maanta soo waayinana waa iska jiifanayna iska qadeeyni asan xoog ku nool ahaa ijaar oo ku jiri halo xiriyo asoo bil laga rabo aan la xiray 2 bilood oo ijaar ah ku socdo usin waxaas oo ku xayirin yahay aan xaaskiisa ahay waa u baahanahay waxna ma haysto usin xoog ku nool waaye waalidkiisna wax ma haysto hadda maadaama ay dhahan dadka dhibka ay u geysteen intaas rabnaa intaas cunugaas dhibkaas aan u geystay isbitaal oo noogu jira unka waxaana nala siin cunugaas traffic ka ma saareenin dhahan anakan gacantaana wax kuma jiro wax oo soo saarna ma hayno cunugeena xaq arsaaqdiisa Allah ahaasto wax ma siiyaan inta lagu diilaa qofka walaalkay wax garad $1 ibar $2 si loo heli karo loo kiirooya arsaaqdiisa ma siiyaan qofka walaalkay waxa ku codsanayaa inay u caawiyaan Saudi Usman Awees ay waxay sheegaysaa in alla qadartiisa ay ku dhacday balse reerka wiilka shilka loo geystay ayaa waxay sheegaysaa in ay mar walba ay soo wacaan ayna weydiiyaan qarashka hadii uu halkaasi ku sii xirnaan doono Saudi Usman Awees ayaa waxay ka codsanaysaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iyo dibadiisa in ay ku soo tabarucaan waxyaabaha looga baahan yahay maadaama ay sheegeen in aysan haysan wax qarash ah balse reerka ayaa waxay sheegayaan in wiilkooda loo sii deyn doono marka ay bixiyaan lacagta qarashka ee gashay bukaanka ku sugan isbitaalka aloo ku dhacay afgooyo ka imaaday ceelasho oo shilka oo ku galay
mid kalena waxay ahayd maalin walbana ama habeen walba qofkaas bukaan intuu isbitaal ku jiro qarashkiisa waa nagu socdi haa 36 maalmoodon xiran haloo xiran isbitaalka oo ku jira cunuga marka hadii oo qarashkaas la helo wiilkaasi dadka waxa ka asanaaya in wiilkaas traffic ku jiro in ay u kaalmeeyaan soo banaanka ugu imaado in traffic ka soo haa hada ilaahay nigaarsi maadaama dadka aad ku daawanayeen oo soo dooraayeen qaar nambarka raadinaya jiraan marka nambarka la sheego ma furaa ewer waaye 74 67 71 ay u soo caawinayaan walaalahay muslimiinta